السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانيغو عبد الولي محمد ومشهد كبرتان برشاد كمبيوتركا iyo sidoo kale multimedia raw production waa markale iyo barnaamijkeeni hadiyad siinta oo kugu tala gashay Pro Production Challenge Everything ugu horeen aan daawano waxa inoogu tala gashay Pro Production Challenge Everything Audio Jungle. Audio Jungle. kaasi wuxuu ahaa midka lagu magacaabo logo animation haddii aad tahay qof jecel inuu helo hadiyadaha aan soo sheegnay oo aad ku soo daabatay muuqaalka projectiyadooda ama templatesyadooda waa inaad martaa shuruudaha soo socda haddii aad tahay qof inagu cusub waxaa muhiim ah inaad subscribe saarato channelka sidoo kale aad like garayso muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba sidoo kale waa inuu qofka ku share gareeyaa social mediaha meel walba uu markaas leeyahay haddii qofka uu buuxiyo inta soo shuruuda waxaan u soo gudbinaynaa passwordka oo markaas ku extract garaysan lahaa projectigi uu soo degsaday muuqaalkani waxaan ku baran doonaa sidee file oo folders kugu jira aad ugu ilaashan kartaa dadka aad u diidan tahay in ay arkaan waxyaalaha adiga gaarka ku ah adigoo u samaysanayo password haddii aad tahay qof inagu cusub misna xiiseeya casharadan subscribe gareysa channelka sidoo kale like gareysa muuqaalkan hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashar walba oo aan markaas soo gelino markii aan joogno computerka waxaad halkan ku arkaysaa inuu inoo diyaarsan yahay laba folder midna ay ku jiraan file oo ah dhowr shay oo aan isku aruurinay oo aan hal meel isugu geynay kaas oo aan rabno inaan qarsano qasab maaha marka sawir kaliya inaad qarsan karto sida baa qarsan kartaa image muuqaal wax alaala wixii markaas aad u baahan tahay waa aad qarsan kartaa sidoo kale halkaana waxaa inoo yaalo folder oo faaruq ah kaas oo aan rabno inaan ku qabano shaqadii muuqaalka aad daawanaysid hoostiisa waxaa yaalo meel ay ku qoran tahay folder log code faylkaas ayaad la soo degaysaa iska ilaali faylkaas inaad asiga gudihiisa shaqo ka qabsato faylkaas waa inaad copy ka samaysataa oo aad meel dhigataa faylka markii aad soo download garaysato wuxuu u soo kacayaa sida tan wuxuuna u diyaarsan yahay like a document ama notepad qofba sida u yaqaano okay maxaan samaynaynaa marka qoraalka markuu sida tan yahay qaybtan waxaad ka raadinaysaa meel ay noogu qoran tahay your password meeshan your passwordka ayaan waxaan gashanaynaa passwordkii aan rabno in aan ku xiranno folderkii okay maxaan samaynaynaa marka passwordkii ayaan abuuranaynaa waxaan ka dhiganaynaa passwordka 1 ilaa 6 1 2 3 4 5 6 ayaan leenahay okay markii aad tiraahdo marka control s miyaad leedahay maya waxaad leedahay file menu ayaad furaysaa kadibna waxaad dooranaysaa meeshan inoogu qoran tahay save as okay anaga hadda wuxuu inoo yaalaa desktopka waxaa inoogu qoran folder my files ayaan rabnaa file inaan soo gashano kadibna aan qarsano okay maxaan samaynaynaa waxaad samaynaysaa my fileska ayaad double click siinaysaa double click markii aad siiso meeshan ee calaamadda ku qoran tahay file nameka ayaad click ku siinaysaa waxaad ku qoraysaa password
password markaa ku qorato kadib waxaad raacinaysaa .bat oo ah midka kibiliga geedka habeenkii duulduula laakiin ma ahan wuxuu ula jeedaa code okay waxaad leedahay marka .bat markaad tiraadid kadib waxaad leedahay save kan waan iska xireynaa oo uma baahnin hadda kadib okay folderkii ayaan furaynaa marka folderkii markii aan furno waxaan arkaynaa inuu inoogu qoran yahay password laakiin calaamad ahaan inuu inoogu samaysan yahay wax aad dareemaysid sida kushaneeto oo kale okay kan wuxuu u diyaarsan yahay like cmd gudihiisa ayuu koodka ku diyaarsan yahay okay maxaan sameynaa marka double click ayaad siinaysaa double click markaad siisid waxaa arkaysaa computerka inuu refreshment camal hal mar qaadanayo kadibna uu kusoo dhigayo folder ay ku qoran tahay private marka waxa aan rabna inaan qarino waa folderkan ay ku qoran tahay private-ka ayaan rabnaa inaan dhex gelino wax walbo aan rabna inaan qarsano okay halkan ayaan furaynaa waxaan soo qaadanaynaa kan iyo kan iyo kan iyo kan tusaale ahaan copy ayaan leenahay okay copy markaan dhahno folderkan ayaad tegaysaa kadib faylashii aad u baahan tahay inaad qariso ayaad halkan dhex dhiganaysaa okay hadda marka copy intaan dhihi lahay waxaa ka qurux badan inaan cut dhaho kadibna aan ku duldaayo meeshii aan u baahanahay in aan faylasha ka qariyo okay maxaan sameynaynaa marka waxaa arkaysaa folderkii inaan faylasha soo gashanay okay passwordka ayaan haddana laba jeer riixayaa wuxuu ku weydiinayaa marka diyaar ma u tahay password in aan ku xiro folderkan haddii aan taabto xarafka y wuxuu u yaqaanaa yes haddii aan taabto n weli wuxuu diyaar u yahay inaad files kusoo shubato okay maxaan sameynaynaa y-da ayaan taabanay enter ayaan leeyahay enter markii aan dhaho automatically waxaa arkaysaa faylasha way baxeen ma bixin faylashaada waa ay qarsameen qofka hadhow marka uu yimaado uu furo computerkaaga folderska halkan uu ku arko double click marka aad siiso waxaa arkaysaa inuu qofkii uusan arkayninba so hadhow sidee kusoo bixin kartaa marka waxaad kusoo bixin kartaa sida soo socota double click ayaad siinaysaa calaamadda faylka ah meeshaan ayuu kuu keenayaa waxaad gelinaysaa passwordkii tusaale ahaan hadda anaga waxaan gelinaynaa 1 2 3 4 5 6 inuu ahaayaan jecla enter ayaan leenahay isla markii waxaa inoo soo baxayo folderka private-ka okay waan qarinaynaa passwordka ayaan si qaldan u gelinaynaa double click ayaan siinayaa okay ma qariya ayuu leeyahay yes ayaan leeyahay y-da qasab ma aha capitalna u qori kartaa smallna u qori kartaa laakiin muhiimadda waa inay y kuu qortaa enter ayaan leeyahay waxaa arkaysaa inuu ii qarsamo okay hadda double click ayaan siinaya passwordkan qalda isla fiirino waxaan ku qoraynaa passwordka tusaale ahaan eber ayaan leenahay enter ayaan dhahaynaa waxaa arkaysaa wax folder isma furaayo maxaa keenay waa uu qarsan yahay so qaabkan waa qaabka ugu fudud ee markaas aad awood u leedahay in aad qarsan karto faylkii aad rabtid inaad ku qarsato folderka waxaad dhici karta inaad isweydiinaysa su'aal ustaad awood ma u leeyahay faylka aan qarsaday inaan gadaal dambe faylal kale aan ugu soo darsan karaa ha waa awoodaa sidee u samayn kartaa marka waa inaad furataa folderkii waan furaynaa 1 2 3 4 5 6 okay aan leenahay okay way inoo soo baxay kan ayaan furayaa waxaa arkaysaa intii fayl inuu noogu jiro okay fayl ayaan soo qaadayaa waan ku dul deynayaa ila fiiri okay waxaan ku soo darsaday laba file oo ah business card-kayga so waxaa arkaysaa labadan business card inaan ku soo darsaday midna waa midkan waxaa arkaysaa in labadiiba aan ku soo darsaday okay maxaan sameynaynaa marka back ayaan leeyahay waan xirayaa ila fiiri marka wuxuu leeyahay ma xiraa y ayaan taabanayaa enter ayaan leeyahay automatically waa uu xiray qasab ma aha marka faylashii aad u baahan tahay gadaal dambe daa faylal kala hesho haddana waad furaysaa waa aad gelinaysaa okay hal qorshe marka aad muhiim u ah ayaan rabaa inaan kugu daro okay waxaa dhici karta marka qof inuu ku weydiiyo uu ku dhaho niyahow folderkan maxaa ku dhex jiro so marka qorshe waxaan ku siin lahaa oo muhiim ah oo aadna kuu anfacayo waayo qofka aad rabtid inaad ka qarisid folderka waa uu arkayaa laakiin marka uu galo ayuu wuxuu sii arkayaa inuu ku xiran yahay password okay ani absolutely marka ani qorshe ahaan waxaan kugula talin lahaa inaad samaysato folderkaba inaad qarsato asalba kadibna aad sii furato okay sideen u samayn karaa folderkii ayaad dul tagaysaa right click ayaad leedahay kadibna waxaad dooranaysaa properties kadibna halkan ayaad waxaad saaraysaa isha oo ah midka hidingka kadibna waxaad leedahay okay kadibna su-aashaan ku weydiina kan kore tigta saaro kadibna okay dheh automatically faylkii waa uu baxay okay faylka kama bixin computerka laakiin waa uu ku jiraa sidee kusoo baxsan kartaa waxaad furaysaa my computer tusaale ahaan meesha ugu fudud my computer ayaad furaysaa qaybta kore waxaad ku arkaysaa viewga ayaad kale ku siinaysaa qaybtan ay ku qoran tahay hiding itemka ayaad kale ku siinaysaa waxaa arkaysaa desktopkaagii inuu ka soo baxay calaamadii double click ayaad siinaysaa waa ujeedaa faylkaaga waa isticmaali kartaa okay ani waxaan sameeyaa marka sida tan markuu ii yahay
qaybteedii horan ku laabtaa ama file view-gi tigtaan iska qaada. Okay, folderku uu ii qarsan yahay kiina uu ii furan yahay. Double click ayaan siinayaa, passwordkayga ayaan u bixinayaa 1 2 3 4 5 6 ayaan leeyahay, enter ayaan leeyahay. Automatically failasheeda wixii oo dhan waa iska fiirsaday. Howsheedan ka dhameystay double click aan siinayaa, waayaan leeyahay, enter aan leeyahay. Automatically failka waa ii xirmay, kanaan iska xiray. No one knows waxaan isticmaalay. Sidaan filaayo wixii aad raadinaysay waa aad heshay. Waxaan ka codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka, sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalkan iyo muuqaalada kaleba. Sababtoo ah waanu kaaga mahadcelinaynaa. Waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo iyo casharkeena xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.